السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta igu xiran ee Jana Galafoor Official waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, subax wanaagsan, duhur wanaagsan, waqti kasta ay ku tahay wanaagsan. walaal Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa na gaarsiin kara meeshaan hiigsanayno. walaalkeena Soomaaliyeed ka suko walaalkeena Soomaaliyeed wuu na gaarsiin karaa. walaal waxaan kaa codsanaynaa meesha aan hiigsanayno inaad na gaarsiiso subscribe noo taawo, share-ta, commentiga, intaba like-ta, intaba waa xagiine. baqiilka ma fiicno, baqiilnimadana ma fiicno. walaalkaagu ayaan ahay, subscribe aad ay taabatana waxba kaama dhibeysa, anna wax taray ay tahay. haddaba caawa waxaan idin sidaa arrin naxdin leh, arrin murugo leh oo caawa ka dhacday waddanka Kenya, magaalo madaxdiisa Nairobi. waxaa caawa lagu dhaawacay sidaad arkaysaanba walaalkeena Dirisla Cabdi oo maanta qofka bini aadamka ah waxa ugu xun feeska in laga aado way xun tahay. horta bini aadan aan nahay, wax walba waa dhacaan, dhib iyo dheef way siman yihiin, laakiin qofka inaad wejiga aad ka aado wallaahi mamnuuc waa, qalad waay. waxay ugu talagaleen dadkaas soo weeraray Dirisla Cabdi inay madaxa ka jebiyaan. baangada ayay ku hubeysnaayeen, tooreyaal ayay ku hubeysnaayeen, way soo weerareen, dhaawac ayay gaarsiiyeen. Soomaali eed kama dhammaato, wadarta iyo weertan way kulmi karaan. waxaa la leeyahay waxaa yaa ka dambeeya dagaalkaasi. Soomaali waxay tiri meedkee u dambeeyay, meedka hadda la sii wado waayo. yacni Dirisla Cabdi iyo CK waxaan ognahay ayaantan inay xifaaltan dhexdooda taalay, dagaal dhexdooda yaalay, rabsho dhex taagneyd, buuq dhex taagnaa. waxaa loo aaneynayaa dagaalkaasi inuu geystay ama sababay CK. allahu aclam, ilaah unbaa og. laakiin sida dadka goobjoogyaalka ay sheegayaan, dadka ku habeysnaa baangadaha waxay ku xadaaqayeen ama ay ka socdeen dhinacaas ayaa la leeyahay. walaalkaygow, maanta haddii qof hurguf kaala dhexayso ama dembi la baarayo oo qofka dhib loo geysto, dembi la baarayo, waxaa dembiga baarista uu ka bilaabanaa yaa yacni colaad idinka dhexaysay, yaa yacni mataqaanaa aad colaad kuu haayay ama dagaal idinka dhexeeyey. taas baa la isweydiinayaa. CK hadduusan lug ku lahayn xataa waxaa meesha taagan yaa colaad kaala dhexeeyey, waxaa colaad kala dhexaysay CK. kanaga ma hubno, maladuna waa shay xaaraan. marka waxaan leenahay walaalkeena ilaaha u boogadhayo, ilaahay caafimaad ha siiyo. ruuxii yacni dhibkaas geystay ama ha ka dambeeyo qof ama iyaga ha soo maagaane, alla subxaanahu wa tacaala ayaa ka jaasin doona iyagana. horta beryahan waxaa soo shaacbaxday in social mediaha uu noqdo meel laysku ugaarsado ama meel maxkamad ah. war ajaanib badanaa ku jirto social mediaha, dowlado badanaa ku jiraan, bal soomaaliyey aadinka keliya maxaa isu maagtaan? horta waa maqlayna Nicimo Joker iyo beesha ogaadeen waxa dhexdooda yaalay. wax walbo waxa weeye Soomaali weyn, waxaan idin leeyahay social media si qaldan ayaad u isticmaashaan. social media horta ka toosiya, qabiilaa u isticmaashaan, dagaalaa u isticmaashaan, wax walba u isticmaashaan. yaa social media waxaa loogu talagalay in layska xog wareysto, dhacdooyinka lasa. laakiin Soomaali waxay u fikirtay social mediaha inuu yahay goob laysku dagaalo, goob laysku maxkamadeeyo inuu yahay. laga waanto waan idin leeyahay walaalkeena Dirisla Cabdi ilaaha u boogadhayo. haddiiba markaan yacni baangado la isku soo weerarayo, wax walba ka firo, wax walba fiilo. marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ilaaha u boogadhayo sidii Dirisla Cabdi. Soomaali weyn iga waano waaye,
qofka walaalkaaga ee social mediaha kula isticmaalayo dagaalkiisa ha raadsan hadduu kaa qaldayn dadaajo walaalo iga qabo dheh iga qabo halkaas waxaan kusoo gabagabeynayaa kilibkaas gaaban aan duubay caawa oo ka hadlaya dhibaatada Nairobi loogu geystay walaalkeena Dirisla Cabdi waxaan leeyahay Dirislow ilaaha ku boogadhay ilaaha ku caafiyo مسامح الكريم اسك سامح قفكي سام ku yeelay qofka dad dhibaato ku geysta dad saamaxa ilaah un baa ku saamaxa adina wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh